saasa in ka rabay markaas ayaa Cabdullah ibn Abbas oo wiil yar ah in adeerkii nabigu ahaa Cabdullah ibn Abbas nabigu uu u duceeyay tafsiirka quraanka iyo fahankiisa nabigu kaleey salaatu wasalaam ugu duceeyay oo ag fadhiya ayaa wuxuu yiri fi nafsi minha shay'un ya amir almu'minin madaxweynaha mu'miniintow anigu waxbaan dareemaya oo inaan waxa moodaa aayadaas macnaheeda aan fahansanahay wiil yar way waa uu xishood markaas ayaa Sayyid Umar bin Khattab wuxuu yiri Allah ka raali noqday yabna akhi qul wala tahqir nafsak wiilkayga yani adeerka aan ahaw adeer dah sheeg waxa aad aaminsan tahay waxa aad ka fahansan tahay aayada cadee hana isliidin ha isyasin dadkan ha ka cabsan marba hadaad fahansan tahay ii sheegu yiri ii cadee markaas ayuu Cabdullah ibn Abbas Allah ka raali noqdo uu sheegay macnaheedu Sayyid Umarna waa taageer u fiirso marka waxa la rabaa ha isliidin waxay wuxuu xadiidka saxiixa ku cadeynaya ama atharkaas asxaabtii rasuulka ka dhaxdhaca wuxuu noo cadeynaya Bukhari ku yaalaahi inaadan isliidin dadka kugu hareeraysan marba wixii hadaad fahansan tahay wax saxa aad sheegaysid wax xaqa aad sheegaysid qofna ha uga joojin qofna ha ka cabsan qofna ha isleen waa ku fiirinaya maxaa yeelay dadku sideedaba hadaad cabsatid weliga dad aad ku dhex jiraysa weliga meel alla kaliya ma joogaysid marka ma sidaana ugu xayirnaanaysa maya hadal oo sheeg wixii aad qabtid wixii aad doonaysid marba hadaysa wuxuu ku ahayn waxyaalo bareefada oo aad isleedahay yaan laga ogaano dad gooni ah kala tashanaysid sida kala dadka yeysan kurbo iyo walwal kugu abuurin joogitaanka aad la joogtaa qodobka shanaad waxa weeye ee muhiimka aad iyo aad u muhiimka ah dhibaatooyinka nala soo darsaya ama nagu imaanayaahi waa wax bilowda dhamaadana waxaad ogaataa u fiirso dhibaatadu waa bilaabataa waana dhamaataa ajarka ay leedahay iyo waxyaalahaas markale ka hadli doona laakiin waxa ogaataa wax kasta oo ku soo wajahay xaalad kasta oo markaa ku jirtaahi oo culaysi waa wax bilowday waana dhamaanayaan marka inta ay waxaasi dhamaanayaan waxa laga rabaa inaad samirtid ee aad adigu horteed dhamaan inta dhibaatadu dhamaan adigu ha halaagsamin ha dhamaan ha baabi'in oo waxa weeye hadii kurbo iyo walwal iyo yani kalsooni daro ay kugu habsato adaaba dhibaatadii maalmihii ay ku soo mari lahayd ka horad baaba'aysa adigiyaaba degayaba adigiya qadka ka baxaya markaasaad u sii jabaysaa marka dhibaatadu waa dhammaataahe intaysa dhammaan ka hor adigu ha dhammaan oo halaagsamine samir oo adkayso waqtiga yarka ah maxaa yeelay waxaa la rabaa naftaada inaad ka dhigtid naf kariime ah oo adkaysimo leh oo karti leh oo kalsoonida cuskata shaqada cuskata waxqabadka cuskata xaaladda adagna ka badbaado adkaysata ilaahay ku xiranto tala saarata ayaa la rabaa in aad noqotid marka intaas yarta inaad samirtid oo adkaysatid ee aadan xadaad ka yimaadaba uusan ku qaadin ayaa la rabaa waxaan soo qaadanaynaa hadal aad iyo aad u qaali ah aad iyo aad u qiimo badan mawduucaas noo sharaxaya salafkii a'immadii islaamku xaaladaas oo kale sida ay u wajihi jireen marka dhibaato kugu timaado ayaan soo qaadanayna qaabkii a'immadii islaamka oo weyna u wajihi jireen hadal qaali ah oo qiimo badan oo aan dareemi karna macnihiisa oo Imam Shaafici u leeyahay soo qaadanayna Imam Shaafici wuxuu leeyahay Allah ka raali noqdo waa gabay aad u macaan oo nolosheena noo sheegaya maxay la hadalladii salafku aad iyo aad qiimo weyn u leeyahay wuxuu leeyahay da'il ayyaama taf'alu ma tashaa'u wa tib nafsan idha hakama al-qadaa'u ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وسي صعدا وكتغين قيب هذا وحو ليهي maalmahan iska dhaaf waxay rabaan ha sameeyeen yani ha ku mashquulin adigu horta ama gacantaada wax ku jiraan ama balaayada keeni kartaa joojina kartaa maya iska qalbigaaga wuxuu leeyahay hagaaji wa tib nafsan idha hakama al-qada hadii xukumka ilaahay uu dhacayo adigu naftaada markastaba wanaagsanow ilaahay ku kalsoonow alle arimaha u dhaaf maalmaha waxa dhacaya adigu maxba kama qaban kartid waxna ma jooji kartid waxna ma celi kartid adigu ha dhibtoon naftaada tiib noqo maxaa yeelay hada culays haduu ugu yimaado ka waran wuxuu leeyahay wala tajza' li hadithati al-layali fama li hawadith ad-dunya baqa'u yani dhacdooyinka iyo musiibooyinka iyo culeysyaalkaas
yimaaday oo kugu dhacay ha la argagixin ha la dhibaatoon ha la go'in ha ku yacni ku tegin maxaa yeelay faman lixawaadithi dunya baqaa adduunyada waxyaalaha dhacdooyinkeeda ahay ma sii joogaan culayskaas markaa ku qabsaday ma sii daa'imayo adigoo berri faraxsan ee uu shalu maray ahaayoo uu tegey ayaa arkaysaa marka culayskaasi yuusan kula tegin yuusan ku qaadin daadku wuxuu leeyahay samir adkayso ha la argagixinoo maxaa yeelay dhibaatada waxaaba ka badan dhibaatada kugu dhacaysa dhibaatada ka cabsideeda qof ayaa waxbaa la sheegaya culaysa intaan culayskii imaan ayaaba qofku sii dhibtoonaya oo naxaya argagaxaya walwalaya marka kaas hore u fiirso argagaxaas kugu dhacayaahi waxba kaama celi karo kow adigana waa ku dhibaateeyey wixiina waa imaanayaan ama ma imaanayaan ilaahay ayaa ku shaqo ku leh waa imaanayaan ama ma imaanayaan laakiin adiga argagaxaas kugu dhacay wuu ku dhibaataynayaa walwalkaas wuu ku dhibaataynayaa wixiina ma celi karo marka maadaama waxba uusan kaa celi karin ha walwalin habi noqo wakun rajulan cala alahwaali jaldan waxaadna noqotaa qof adkaysimo leh oo dhibaatooyinka iyo xaaladaha ku soo maraya u adkaysta washiimatuka samaaxatu walwafaa oo ay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa dabeecadiisu tahay deeqsinimo waxbixin cafin ballan oofin ay tahay yacni yayse waxba kaa bedelan wanaagaagiisa kaa bedelin ilaa uu yiri oo waa soo gaabinaynaahe walaa turi lilacaadi qadu dulla faina shamaatata alacdaa balaa'u u fiirso wuxuu leeyahy cadowgaaga ha tusin weligaa dulligaaga jileecaaga baahidaada duruuftaada ha tusin cadowgaaga maxaa yeelay cadowgu qosalka uu kugu qoslayaahi waa dhibaato weyn wax ka daran ma jiraan waa muxaadaro dhan aan ugu talagalnay oo ku faahfaahi doonaa marka cadowgaaga ha tusin uu leeyahy baahidaada iyo duruuftaada cadowgaaga u labiso isu qurxi inaad faraxsan tahay muuji xataa haddii ay maaragtay ay wax kaa qaldan yihiin oo duruufi ku haysato dadka kaa soo horjeeda dadka a ogtahay inay kugu farxayaan dadka xumidaada raba dadka baahidaada raba dadka cudurkaaga raba dadka duruuftaada raba weligaa isu qurxi farxad tusi gabaygii oo suugaanta soomaalida ka mid ahaa gabayada haddaan u sifcan qabadkooda kuma fiicnay waa macnihii aan sheegaya wixii qaldan dadka luqada noo saxaa sixi doona wuxuu yidhi wuxuu ahaa dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhoobni kaa garane waxaa loogu dhaashadaa dhuux sagaaro macnihii asaas ahaa yacni cadowgaagu yuusan baahi iyo dulli iyo liidnaan kaa garan dhuux sagaara loogu dhaashadaa macnaha waxa weeye haddaad xataa wax yar haysatid waxaagaas kusoo subko kusoo saliidayso isu soo qarxiyo isoo kareemiyo isoo carfiyo isoo udgi adigoo labisan ha ku arka cadowgaaga qofkan habayar war qofkan waxbaba kuma dhicinba muxaadaro dhanaan ugu talagalna insha allahu tacaala oo ku faahfaahi doonaa marka wuxuu leeyahy imaamu shaafici walaa turi lilacaadi qadu dulla weligaa cadowgaaga ha tusin baahi iyo duruuf iyo dhibaato fa ina shamaatata alacdaa balaa maxaa yeele cadowgaaga oo kugu qosla waxa weye balaayo iyo dhibaato ka weyn ma jirto xumidaadu meel kasta geynaya muxuu imaamu shaafici hadalkiisii maxaa ka mid ahaa walaa xusnun yaduumu walaa suruur walaa bu'sun calayka walaa raqaa yacni kurbada iyo tiiraanyada iyo walwalka ma sii joogaan sidoo kale farxaduna ma sii joogto adduunyadu waa isbadbedelaysaa musiibooyinku ma sii joogaan barwaaqaduna ma sii joogto marka waxaa la rabaa adkaysimo markaas wuxuu ku leeyahay idaa maa kunta daa qalbin qanuucin fa anta wamaaliku dunyaa sawaa haddii aad kalsooni leedahay qalbigaagu ilaahay ku xiran yahay rabbigaaga aad jeceshahay waxaa agtiisa ka tahay aaminsan tahay adiga iyo qofka hantida iyo dhaqaalaha iyo barwaaqada haystaahe isku midaad tihiin qofka markaas waxa aada haysan haysta hadday shaqo tahay hadday caafimaad tahay hadday owlaad tahay hadday guur tahay hadday hanti tahay hadday wax kala tahay waxa aada haysan qofka haysta iyo adigu isku midaatiin marba haddii ilaahay qanaaco iyo samir uu ku siiyo allahu akbar kaas waa qodobkii shanaad ee aan ku faahfaahinaynay bilowgii qodobka lixaad qodobada ugu muhiimsan ka mid ah waxa weeye in aadan aaminin hebel iyo hebel iyo heblaayo oo dadka ka mid aha kaa fiican adiguna waa liidataa ayagu waxay qabtaanba waa ku guulaystaan waxbarashaday ku guulaystaan guurkay ku guulaysteen ilmahelistay ku guulaysteen shaqaday ku guulaysteen meel fiicanay gaareen aniguna wax ma noqon anigu meel ma gaarin anigu wax ma qabsan anigu wax ma tabcan taas ha aamin
taas ha liidin hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblaayo kama fiicna hadday meel ku fiicnaadeen adiguna meelaad ku fiicanta ma jiro qof meel kasta ku fiican ma waxaa aragtay qof dhaqtar ah oo injineer ah oo siyaasi ah oo macallin ah oo sheekh ah oo yani qof oo 10 title oo waaweyn oo mid kasta ay u baahan yahay PhD laga qaato qof haysta ma aragto ma haysto meel uu ku fiican yahay qof kasta ha adiguna meel kale ku fiicanta wax xaqiiqo qof aan meel ku fiicnayn ma jiro bini aadamka ha adigu haday dadkaasi meel ku guuleysteen adna meel kale ku guuleysat waxa leer nin oo curyaana ayaa hadda qisadii si fiican way iga qaldantay nin curyaana ayaa nin yiri ila tartan markaas yiri hayo ayaa nin yiri ila tartan hayo waa kula tartamaya markaasuu kii cagaha lahaa war ma ka deysid ma waa kula tartamaya kii cagaha lahaa orod isi daayay bof ay 1 iyo 2 iyo 3 markii leeyahay kii curyaanka ahaa kii cagaha lahaa dhinacu u cararay ma ahane dhinaca kale asna u gurguurtay meeshuu xoogaa ka gurguurtay markii uu ka gurguurtay kii gadaal soo fiirshay maxaa dhacay waliir wuxuu yiri ninba dhan u badiyay يعني أدو حقا أو أرد أنا حقا أرد من كستا ماشي وكتج مركو عن كودا قف كستاهي مالو كفي عين